Assalaamu calaykum dhammaan muwaashaqiinta heesaysa Konami ama eFootball meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub. Gameka ayaan gudaha usii galaynaa. Update-kii waa kana waa soo degsanaynaa. Maanta gameka maxaa ka cusub, maxaa players oo la keenay, maxaa coins oo free lagu dhiibi doonaa, ma ciyaaryahan free ah waxaas maa la qaadan doonaa, waxaas ayaan isla arki doonaa. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad channelkan soo booqato muuqaalkan like saar, channelkana subscribe noo dheh si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kaleeto. Waayahay gameka ayaan si toos ah u gali doonaa. Waxyaabaha ka cusub oo maanta lagu soo kordhiyey ayaan isla arki doonaa. Okay, waayahay muuqaalka like saar. Okay, gameka saan markaa u soo gasho waxaad arkaysaa in dhinaca aybigiyada waxba laga bedelin oo Netherland aybigiiska markaasi u horeeyo. Haddaan ka baxno intaan kaleetana loan bonuski iyo waxaas ma aadi waaye, laakiin freegaas oo 500 oo points ah ayaa lagu siin doonaa markaas sidaa u soo gashoba. Markaas sidaa u soo gasho haddana waxaa lagu siin doonaa Spainkaas oo free ah. Spain national team campaign-kii oo free ah lagu siin doonaa. Waayahay marka waxaan isla eegi doonaa playerskii oo players of the week-yadii iyo championship-kii dhankaas ayaan isla eegi doonaa. Waxaan tegaynaa specialka oo dhanka ciyaaryahanada lagu fiiriyo ayaan isla eegi doonaa. Okay, special playerska ayaan ku dhuftay. Saa u jeedoba waxaa u horeeya European Club Championship marka ayagaa ku dhufanaynaa. Saa u jeedoba waa sii galaynaa. Raggii shalay ah idin dhahay waa la keeni doonaa ma la keenay aan soo arki doonaa. Channelkan like saar, YouTube-kana subscribe noo soo dheh. Waayahay raggan waa u jeedaan raggii aan ku dhahay Luis Diaz iyo ninkii kale oo official waaye aan ku dhahay si toos ah waa loo keenay. Rafael Leao iyo inta kaleeto oo la socotay oo aan ku dhahay konton waaye in la keeno in la keenin ay u badan tahay. Raggii dhan waa la keenay inta aan ku dhahay waa la keeni doonaa iyo inta aan ku dhahay waa konton waaye dadka aan ku dhahay dhammaantood waa la keenay. Haddaba saa u jeedo 11 qofood waa kuwaasa. Haddana waxaan isla eegi doonaa dhanka kale ciyaartoydii kale oo players of the week-yada hadda ayagana gudaha usii galno. Rag waxaa jiray aan ku dhahay si official ah baa loo keeni doonaa. Raggaas waxaa u horeeyo Vinicius Junior oo markaasi aan ku dhahay dhanka kale waxaan ku yiri Mohamed Salah ayaa la keeni doonaa. Konami horta heshiiskeeda waxaa yahay ama dabeecadeeda naadiga hal naadi laba ciyaaryahan kama keento. Mohamed Salah iyo Luis Diaz oo kaliya ayaa la keenay. Bruno Fernandes iyo raggan kale aan ku dhahay 50-50 waaye iyo ninkan kale Jeneska ah iyo dhammaantood waa la keenay 11 qofood aan kuu sheegay. Kaliya halkan waxaa ku maqan Maximan iyo dad yar ah ayaa ka maqan oo markaasi laga reebay. Waayahay waxaan isla eegi doonaa intaan kale oo markaasi Brazilian-kan iyo dhankan kale oo ayagana markaasi si toos ah ay u yaalo Japaneskan oo 13 biri ah iyo dhankan kale Iraq dhankan kale intaas oo aad u jeedaan ayaa markaasi halkan yaal. Inta kale waa sidooda waa 27 maalin ayaa u harsan ayagana waa la qaadi doonaa. Qaar ayaa 20 maalin u harsan Japaneskan oo kale marka qaar intaan kaleeto 20 maalin u dhiman waa kasii baxaynaa. Haddana waxaan isla eegi doonaa dhankan iyo managerska ama bagiska. Bagiska ayaan isla eegaynaa. Patrick Vieira u horeeya bagiska Arsenal oo sidiisa u taalo. Steven Gerrard, Fernando Torres intaan sidooda waaye wax isbedel ah laguma sameynin. Waan kasii baxaynaa. Waxaan isla eegi doonaa qeybaha kale oo markaasi gameka ayaan isla eegi doonaa. Haddaba saa u jeedaan gameka qaybtan oo shopka Bontiskan ayaa markaasi ka cusub. Bontiskan haddaan gudaha usii galno waxaa ku jiro hal ciyaaryahan oo markaasi lagu soo kordhiyey. Qaybta playerska ayaan ku dhufanaynaa. Qaybta playerska markaan ku dhufano saa u jeedoba Gabriel Martinelli ayaa ku cusub oo aad ku iibsan doonto 5,000 oo points ah. Haddaba ma ahan coins ma ahan GB lacagta aad ku iibsanaysid waa points. Muuqaal ayaan kasoo diyaarin doonaa qaabka markaasi loo iibsado ratingkiisa wuxuu gaarayo waa isla arki doonaa. Ninkan ayaa ku jiro halkan bes halkaas ayaan iga sii baxaynaa. Dhanka kale haddii aan eegno meeshan weli lama furin. Meeshan kalena trading-ka ayaad markaasi ku iibsanaysaa.
haddii aan kasii baxno muuqaalkeeni maanta intaas ayuu ku saabsanaa. Haddii aad muuqaalka dhammaadkiisa nala soo gaartay, muuqaalkan like saar, channelkana subscribe soo dheh si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kaleeto.